meydadka shacabka ayaa meel walba daadsanaa wada kasta waxaa yaalay dhowr qof oo dhimatay dhibaatada ugu ba'an waxa ay ka dhacday bartamaha magaalada Muqdisho halkaas oo si ba'an loogu dagaalamay 28 maalmood ayaa si naxariis la'aan ah loogu dagaalamay waxba la isu mareebo nooc kasta oo hub ah oo la heli karay ayaa la isu adeegsaday dagaalku waxa uu u dhaxeeyay kooxo jabhada ah iyo ciidamada taliskii xilligaasi jiray maalin axad ah oo ku beegnayd gelinkii dambe ee maalintaas dagaalkii 1991 waxa uu xoogiisii ka qarxay suuqa Siinaay ee degmada Wardhiigley dhawaqa rasaasta la isweydaarsanayay ayaa galabtaasi inta badan laga maqlayay xaafadaha magaalada xaaladdu waxa ay ka sii dartay markii ay qorraxdu dhacday jidgooyooyin ayaa bilowday qolo kasta halkii ay joogtay ayay xiratay rasaas u badan tareeso ayaa cirka loo ridayay dhulka waxaa iftiiminayay rasaasta tareesada ah ee cirka loo ridayay cidna ma saadaalin karin halka ay arintu ku dhamaan doonto cid walba wadnaha iyo farta ku haysay cabsi iyo walwal ayaa lala gariirayay xitaa dhinacyadii dagaalamayay ma qiyaasi karin halka ay sheeko ku biyo shuban doonto labadii maalin ee ugu horeysay dagaalku si goosgoos ah ayuu uga socday qaybo kamid ah magaalada daraartii uu curtay sanadkii 1991 ayuu dagaalku xoogaystay kadib markii ay jabhadihii ku soo fideen xaafado ay markaasi joogeen askartii dawladda kacaanka goobaha ugu daran ee la isku food saaray waxaa kamid ahaa wadooyinka aadan cadde Florence agagaarka gurigii Habar Khadiijo iyo meelo kamid ah jidka Nasiib Buundo wadooyinkaas waxa ay ka kala tirsan yihiin degmooyinka Howlwadaag Wardhiigley iyo Boondheere dhimasho badan iyo dhaawac aan tiro lahayn ayaa goobahaasi ka dhacay 23 January 1991 ayuu dagaalku laba kacleeyay kadib markii ay magaalada soo gaareen ciidamo la sugayay oo jabhadaha gurmad u ahaa si waali ah ayuu dagaalka maalintaasi u dhacay difaacii hore ee ciidamadii dawladda ayaa si fudud lagu jeeray jabhadihii dagaalamayay waxa u suura gashay in ay inta badan la wareegaan gacan ku hayntii magaalada ayaga oo ku dhawaaday halkii wadanka looga talinayay oo ahayd Villa Soomaaliya 3 casho kadib raggii kaabiga ku hayay Villa Soomaaliya waxa ay ku guuleysteen in ay u daataan xaruntii madaxtooyada isla markaana ku yaacaan xafiiskii madaxweyne Maxamed Siyaad kabtay ma aragtay ayaa halkaasi ka dhacday odaygii dalka madaxweynaha ka ahaa habeenkii 26 ka ahayd ayuu ka huleelay madaxtooyada ayada oo xabada badan kor loo ridayo ayaa la waabariistay subaxii waxa dadku ay soo kaceen xabadahaas 26 January sanadkii 1991 waxa la isugu hambalyeynayay bixitaankii Maxamed Siyaad baabuur ay ku buufsan tahay USC ayaa meel walba ordayay meydka dadka ayaa daadsanaa meelihii lagu dagaalamay meydad la bargaran waayay ayaa markii dambe nuuryo lagu shubay waxa lagu arki jiray wadooyinka Jubba ex-baarlamaan jidka Cagadhiig agagaarka dugsiga 15 May iyo meelo kale oo kamid ahaa degmooyinka Shangaani iyo Xamarweyne lama mahadin ridistii Maxamed Siyaad saacado uun kadib markii laga itaal roonaaday waxaa si baahsan u bilowday loolan siyaasadeed oo u dhaxeeyay jabhadihii xukunka uu oomanaa intaasi waxaa barbar socday bililiqo ugaarsiga dad aan waxba galabsan abuuritaanka fariisimo ciidan oo qaab qabiil u dhisan iyo dagaallo soo noqnoqday oo salka ku hayay arrimo qabiil taariikh ahaan wixii dhacay xilligaasi waxa ay ahaayeen masiibo madow burburkii waqtigaasi bilowday waxa uu ku faafay dalka oo dhan taariikh xumo iyo dhaxal aan la mahdin ayaa Soomaali ka raacay isdilkaanu faa'iido u keenayo soo jirin talabaad oo ka sii xun waxa weeye haddana boobkii bilaqaysiga jidaysiga xoolaha dadka masaakiinta la dhaco wax ka foolxun jira guriga la dhacaya bariya laga qaadanaya dad baa xoolihiisa la dhacaya dukaamada la jabsanaya arrin foolxun weeye aad iyo aad foolxun USC wuxuu ahaa urur hubaysnaa oo dalka u horseeday in xukunka si xoog ah looga fujiyo madaxweyne kaligii taliye ahaa
laakiin ururkaasi waxa uu sabab u noqday in ay dalka ka abuurmaan madax wada taliyayaal ah wax walbana burburiya in dib loo dhisana hor istaaga oo diida ilaa kuwii iyaga ka faracmay ay u soo baxeen rag maxaakiim islaami ahaa oo cagta mariyay kuwaas. haddaba siduu ku aasaasmay ururkii jabhadda ahaa ee USC muxuu falay siduu u kala qaybsamay xaggayse ku dambeeyeen u diyaar garow sheekada ku saabsan USC. USC waxaa lagu aasaasay dalka Talyaaniga sanadkii 1987. rag siyaasiyiin u badnaa ayaa ururka seeska u dhigay kadibna waxa ay u yeereen Generaal Maxamed Faarax Caydiid oo xilligaasi ku sugnaa dalka Hindiya waxayna u magacaabeen madaxa howlgelinta ciidanka gudaha. Caydiid xilkii loo magacaabay uu u riyaaqay wuxuuna si degdeg ahayd ugu laabtay dalka isaga oo isku abaabulay isla markaana isku aadistay rag dagaalami kara oo beesha hawiye ka tirsan. USC asaaskeeda ayaa lagu dhawaaqay 1987 laakiin qisadu halkaasi kama bilaabanayso. waxay dib ugu noqonaysaa sanadkii 1977 xilligii dagaalka lala galay dawladda Itoobiya sabab la xiriirta muran ku saabsan dhulka Soomaali galbeed iyo gaboodfallo si joogto ah halkaas uga dhacayay oo loo geysanayay shacabka Soomaaliyeed ee dhulkaasi degan. inkastoo Soomaaliya iyo Itoobiya ay dhowr jeer dagaalameen haddana kan ugu weyn uguna caansan waa midkaas dhacay 1977 sidaas darteed dagaalkaas waxaa loo yaqaanaa dagaalkii 77 yacni dagaalkii 77 sanadkii uu dagaalka dhacay ayaa loogu magac daray. dagaalkaas waxa uu leeyahay qisadiisa gaarka ah wuxuuna mudan yahay barnaamijkiisa gaarka ah in lagu soo qaato. labada dawladood markii ay fooda istareen faktii hore Soomaaliya ayaa ku guuleysatay laakiin ugu dambeyntii wuxuu isu bedelay guul iyo libin u soo hooyatay Itoobiya sababtoo ah siyaasad ahaan way u fadhisay Itoobiyaanka wayna yaqaaneen cidda ay gaashaanbuur ka dhiganayaan iyo sababta ay uga dhiganayaan. The Soviets moved into Ethiopia to assist the communist dictator there, Haile Mariam Mengistu. Soomaaliya waxay Itoobiya ka doonaysay in Soomaali galbeed la xoreeyo laakiin Itoobiya waxay Soomaaliya ka rabtay in ay gebigeedba qabsato oo ka dhigto ismaamul Itoobiya hoostaga. Colonel Mengiste oo xilligaas Itoobiya u talinayay markii uu arkay in aysan u suurtoobaynin in uu guluf ciidan ku qabsado guud ahaan Soomaaliya mar labaad wuxuu hindisay tab iyo xeelad cusub taas oo si rasmi ah loogu burburiyay qarankii Soomaalida. maalintii ay Soomaalida dagaalkaasi ku guuldareysatay ee ciidankeedii la jabiyay wax hal bil aan ka badnayn kadib oo ku beegan 9 Abriil 1978 koox uu horkacayay Colonel Maxamuud Sheekh Cismaan Cirro ayaa waxa ay sameeyeen isku day ay ku doonayeen in ay afgambi military xukunka kaga qabsadaan Jaale Maxamed Siyaad Barre wuuna ka dhicisoobay afgambigaas oo waa laga adkaaday. intii la toogtay ama la xiray maahane intii kale ee soo hartay oo Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu horkacayay waxa ay hub ka doonteen Mengiste hogaamiyihii Itoobiya. taas waxa ay bishaaro iyo bil khayr u ahayd cadowga Soomaalida oo ah Itoobiyaanka. jabhadii Soomaalida in ay kaalmo u doontaan Itoobiya waxay madaxdii Itoobiya u ahayd fursad dahabi ah oo ay qarniyaal raadinayeen. jabhadii SSDF oo si weyn loo soo hubeeyay isla markaana ay hogaaminayaan saraakiil magac ku dhaxlahayd Soomaali dhexdeeda ayaa bishii Julaay ee sanadkii 1982 waxa ay qabsadeen degmooyinka Balanballe iyo Goldogob oo ka tirsan gobolada dhexe. isla maalinkaas waxaa Radio Addis Ababa laga baahiyay in jabhadda SSDF ay burburisay ciidankii Maxamed Siyaad Barre oo ay xoreysay Balanballe iyo Goldogob. wixii maalintaas ka dambeeyay waxa soo tarayay Radio Addis Ababa in looga dhawaaqo jabhado dhowr xaraf oo la soo gaabiyay magac ahaan u wata SSDF, SNM, USC, SBM, SDM iyo kuwa kale oo badan. jabhadaasi mid kasta waxay isku sheegi jireen
in ay yihiin jabhad xaq u dirir ah. aasaasidda jabhadaha waxa ay noqotay markan shaqo la isugu faano iyo tallaabo la isugu daydo, laakiin maxaa ka dambeeyay? bishii January sanadkii 1991 dalka waxaa ka jirtay 5 urur qabiil ee aanu soo sheegnay, laakiin markii dambe ururkii SNM maahane intii kale dhowr garab ay u kala jabeen. qaar ayaa sii toban jibaarmay sida ururka USC oo maanta ay sheekaduna ku saabsan tahay. muddo 5 sano ah oo ku beegan January 1995 waxaa dalka ka jiray 53 urur qabiil una sii kala qaybsanaa 30 urur qabiil oo zoo iyo dhashiika ku hubaysan iyo 23 urur qabiil yar yar oo afka iyo qoryaha fudud ku hubaysnaa. waxaa soo raaca 25 firqo diimeed kuwaasi oo dhammaantood isku magacaabaya xaq u dirir hagaajinta maamulka oo halgamaya, laakiin dadweynuhu way danaysanaayeen in cid walba danaheedii gaarka ah ay u halgamayso, halgankuna uu ku dhisan yahay fawdo iyo in wax la qarbado. waana sababta muddo ka badan 30 sanadood ah lagu gaaray nidaam xumo iyo isbarbaryaac. dhammaan hogaamiye kooxeedyadaasi jabhadaha hogaaminayay waxa ay ka sinaayeen oo isku mid ka ahaayeen damaca waalan ee u hanqaltaagida in ay dalka madaxweyne ka noqdaan. bal qiyaas in ka badan 50 hogaamiye oo mid kasta qori caridiisi uu ku raadinayo in uu hal wadan madaxweyne u noqdo, inta kalena aan waxba u ogolayn. waa sababta aad hadda u arkaysid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland, madaxweynaha dawladda Puntland, madaxweynaha dawladda Jubbaland, madaxweynaha dawladda Galmudug, madaxweynaha dawladda Hirshabeelle iyo madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed iyo kuwa kale oo laga yaabo in ay hadda kadib soo socdaan. damacaasi waalan dartiisii dalka waxaa ka dhacay masiibooyin ay horseed u ahaayeen colaadaha sokeeye oo ay horinayeen jabhadahaasi mucaaradka ahaa oo si toos ah iyo si dadbanba ugu adeegayay danaha dawladda Itoobiya. USC ma ahayn jabhadii u horeysay mucaarad ah oo la aasaasay, laakiin waxay ahayd tii ugu horeysay ee ku guuleysatay tartankii orodka ee loogu jiray ridista dawladii uu hogaaminayay madaxweynihii keligii taliyaha ahaa iyo burburinta qaranka Soomaaliyeed. sanadkii 1987 markii USC lagu aasaasay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga 3 sano kadib oo ku beegan 17 June 1990 shir xubnihii USC uga qabsoomay magaalada Mustaxiil dhulka ay Itoobiya haysato waxaa lagu go'aamiyay in General Ciidiid loo dhiibo qaybta howlgelinta, sidaasna ururkii waxaa gacanta loogu geliyay General Maxamed Faarax Ciidiid oo looga dhigay madaxa howlgelinta ururka. wuxuu isku dubritay rag dagaal geli kara oo beesha Hawiye u badan, kadibna gobolada dhexe ay dagaal ka soo bilaabeen. wuxuu ahaa dagaal u badan ku dhufo oo ka dhaqaaq. dagaal meelaha ay ciidamada dawladda joogaan la weeraro daqiiqado ama saacado kadibna laga dhaqaajiyo ilaa awoodii dawladda ay gobolada qaar ka soo daciiftay. 8 July isla sanadkaas 1990 maleeshiyadii ururka USC waxa ay weerar ku qabsadeen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, waxayna halkaasi ka dhigteen saldhigii ugu horeeyay oo ay gudaha dalka ka samaystaan. 22 isla bishaasi July 1990 waxa ay weerareen fariisin ciidamada dawladda ay ku lahaayeen magaalada Buulaburte gobolka Hiiraan. 5 Agosto waxa ay qabsadeen magaalooyinka Hobyo iyo Xaradheere oo gobolka Mudug ah. kadib isla bishaasi Agosto 22keedii waxa ay gacanta ku dhigeen Jalalaqsi iyo Aadan Yabaal oo ka kala tirsan Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. kadib Mahadaay iyo deegaano kale oo Shabeellaha Dhexe ah, Matabaan oo Hiiraan ah, qayb kale oo maleeshiyada USC ah ayaa u sii jihaysatay dhanka gobolka Galgaduud. waxay qabsadeen Guriceel, Dhuusamareeb iyo deegaano kale. 16 December sanadkii 1990 USC waxay qabsatay xerada ciidanka cirka ee uu deganaa ee Beledoogle. taasna waxay hordhac u ahayd soo gelitaankoodii gudaha Muqdisho ee caasimadda dalka. maalinkii dambe 30 December 1990 jabhadda USC magaalada caasimadda ee Muqdisho ayay soo galeen. xabaduna waxa ay ka dhex bilaabatay degmada Wardhiigle oo hadda loo yaqaano Warta Nabadda.
muddo bil ka yar ayaa si naxariis la'aan ah loogu dagaalamayay magaalada. meydku meel walba ayuu daadsan yahay. dhimashada waxaa badiyey markii ay labada dhinacba bilaabeen in ay hayb qabiil dadka loo dilo. yaa tahay qabiil hebel dhash waa la dilay, yaa tahay jufa hebel dhash. dadkii tarab ayaa loo laayay. kuwa ay madaafiic goobahoodii ugu tageen, kuwa ay xabado wiifta ahaa ku dhaceen, iyo qaar si bareer ahaa loo toogtay haybta ay kasoo jeedeen darteed. waqtigaasi Soomaaliya kama shaqaynaynin ereyga Birmageydo. waayeel, caruur, haween, mid xanuunsan, mid fayow, ku dagaal ku jira iyo mid aan shuqulba ku lahayn, wax la cafiyey ma jirin. kaaga daran wax walba oo adeeg dowladeed ahaa sida matoor shidaalku uu ka go'ay oo kale ayaa hal mar ay u istaageen. dadkii dhaawacmay waxaa loo waayay adeeg caafimaad oo lagu badbaadiyo. madaafiicdu waxa ay u socdeen sida roobka. qulqulka shacabka ka barbaxaya magaalada ayaa wadooyinka waaweyn is haystay. dadka inta ugu badan waxa ay ku baxayeen jidka Afgooye, qaar kalena labada jid ee loo kala aado Balcad iyo kan kale ee xeebta mare ee Jasiira iyo Gendarshe ilaa marka oo Shabeellaha hoose ah sii aada. dadka oo intii aysan xabadu bilaaban ka hor iska ahaa kuwa nabad iyo reyn isaga mushaaxaya ayaa markan indhaha saaray dad ay madaafiicdu jarjartay iyo kuwa toos xabad madaxa looga fujiyay. argagaxu qiyaas ma leh. wax aysan weligood ku fakirin ayay markan arkayaan oo weliba ka dhacaya caasimadii dhamayd ee dalka looga talinayay. waxaas oo dhan waxa ay ka dhasheen madaxweyne talada dalka isku koobay iyo siyaasiyiin iyaga oo aan qorshe qaran u degsanayn iska carooday oo dagaal bilaabay. dhibaatada ugu badan waxa ay ku dhacaysay shacabka aan siyaasadda shaqo ku lahayn, kaliya noloshiisii ku sii jeeday. 23 January 1991 markii jabhadihii mucaaradka ahaa ay soo gaareen ciidamo kale oo gurmad u ahaa, dagaalkii ayaa sii xoogaystay oo sii kululaaday. 23 ilaa 25 January waxaa dhacay dagaal aan marna la isu dabcin ilaa maalintii 26 January lagu waabariistay madaxweynihii dalka iyo siyaasiyiintii kale ee dowladdaasi ka tirsanayd oo magaalada ka cararay. kooxihii hubaysnaa ee dowladda riday halkii ay durbaan iyo sacab ku mashxaridi lahaayeen, xabado iyo madaafiic ayay ku dabaaldegeen. dadkii magaalada ku go'doonsanaa cabsidii ayaa ku sii ziyaaday, iyada oo loo qaatay in dagaalka uu intii hore kasii xoogaystay. yacni jabhaduhu haddii ay caraysan yihiin waxa ay adeegsanayeen waxay ahaayeen xabad iyo madfac, haddii ay faraxsan yihiinna xabad iyo madfac. 20 February 1991 Jaal Maxamed Siyaad iyo askartii daacadda u ahayd ayaa soo rogaal celiyay. dagaal faraha looga gubtay oo askartii labada dhinacna ay ku baaba'een waxa uu ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha hoose ilaa markii dambe la jibiyay kubii Maxamed Siyaad. dadkii guud ahaan wadanka waxa ay u qaybsameen kuwa dagaaladaasi lagu dilay, kuwa deegaano kale u barakacay, iyo qaar dalkaba isaga baxsaday oo dalal kale qaxooti ku noqday. kuwii dalka gudihiisa ku haray, dhimashada, dhaawaca iyo barakaca waxa u sii dheeraa wax la'aan iyo noloshii oo maalinba maalinta ka dambaysa sii xumaanaysay. gobolada qaar baahi ayaa loogu dhimanayay. adduun weynaha dowladihii ay daacadda ka ahayd Soomaaliya in ay kalkaalaan waxay abaabuleen dadaallo lagu caawinayo. Soomaaliya waa loo soo gurmaday. waxaa dalka dibaddiisii lagu qabtay ugu yaraan 15 shir oo loo agaasimay dib u heshiisiinta ururada Soomaaliya ku amar taagleynayay. shirkii ugu horeeyay waxaa lagu qabtay dalka Djibouti 22 July sanadkii 1991. waa 6 bilood kadib markii la riday dowladii militariga ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad. shir uu martigeliyay madaxweynihii Djibouti ee xilligaasi Xasan Guuleed Abtidoon oo ka dhacay Djibouti ayaa Cali Mahdi Maxamed loo doortay madaxweynaha ku meel gaarka ah Soomaaliya oo muddo 2 sano ah xilka haynaya, kadibna la dooran doono dowlad aan ku meel gaar ahayn. si kastaba dowladdaas farna waa nuuxjin weysay, xaaladii cakirnaydna waxba way ka qaban weysay. maxaa yeelay markiiba waxa ay diidmo kala kulantay Generaal Maxamed Faarax Aydiid oo ku dooday in aan lagala tashan dhismaha dowladdaasi isla markaana ay yihiin wax khudba siro lagu soo dhodhoobay.
caydiid waxaa la sheegay in uu u arkayay in uu xaq u leeyahay hoggaanka dalka in uu isagu qabto oo uu noqdo madaxweynaha bedelaya maxamed siyaad maadaama uu ahaa nin askari ah oo soo dagaalamay. xabad ayaa ka dhex bilaabatay isla ururkii USC ee halganka u wada galay in la rido xukunkii kacaanka. USC waxa ay u kala jabtay markan laba daraf, USC SNA oo uu hogaaminayo General Caydiid iyo USC SSA oo uu hogaaminayo mudane Cali Mahdi Maxamed. dagaal umalo doox ahaa ayaa magaalada Muqdisho iyo gobolada ku dhowba ka dhacay. dagaal xoogan oo bilooyin socday ayaa ciidamo kala taabacsan Cali Mahdi iyo Caydiid ku dhex maray magaalada Muqdisho, waxaana ka dhashay khasaare ballaaran iyo burbur baaxad leh. wuxuu sababay in magaalada ay u kala qaybsanto laba qaybood iyada oo uu samaysmay khad cagaaran. xaafado ay ka talinayaan taageerayaashii Cali Mahdi Maxamed iyo xaafado kale oo ay ka talinayaan taageerayaashii Maxamed Faarax Caydiid. gaadiidka dagaalka maahane mid kale ma shaqeeyo, adeeg caafimaad, koronto iyo biyo warkood ma jiro. shaqada sida maalinlaha ah u socota oo aan marnaha kan waa dilka iyo barakicinta shacabka. dagaalkaasi oo loo yaqaano dagaalkii 4 biloodka waxa uu ahaa kii ugu qaraaraa uguna saameynta xumaa ee ka dhacay Muqdisho. marka hore waxaa dhacay dagaal 3 maalmood socday oo hordhac u ahaa kan 4 biloodka loogu magac daray. labadii dhinac ee siyaasadda isku hayay qolo waxa ay ku dooday in iyaga la soo weeraray oo la doonayay in la afgambiyo, waa dawladii Cali Mahdi. dhinaca kale waxa ay ku doodeen in dagaalku uu ahaa isku day dil oo qorshaysnaa oo taageerayaasha Cali Mahdi ay ku doonayeen in lagu khaarijiyo General Caydiid. sidaasna waxaa ku qarxay dagaalkii 4 biloodka. dagaalkaasi waxaa dhinac socday masiibadii bini'aadanimo ee ugu xumayd inta la og yahay taariikhda Soomaalida. abaaro iyo barakicin iswatay ayaa ka dhacay gobolada Baay, Bakool iyo qaybo ka mid ah Shabeellaha Hoose. dadka deegaanadaasi waxaa isu raacay abaaro ba'an iyo in laga dhacay xoolihii iyo kaydkii badarka ee ay ku baxsan jireen xilliyada abaaraha. waxaa la wariyay in kuwa la dilay iyo inta gaajada u dhimatay marka tiro ahaan la isu geeyo ay gaarayeen 500,000 qof. waqtigaasi waxaa loo yaqaanaa cagbararkii, maxaa yeelay waxaa aad u badnaa in la arko dad cagaha ka bararay nafaqo daro darteed. waxaana la arki jiray waalid dhintay iyo caruurtoodii oo meydkoodii iska ag fadhiya ayaga oo rajabeel ah. gargaarkii ay haaduhu keeneen waxaa sababtiisii ku badbaaday malaayiin, inkastoo dhinaca kalena uu gargaarkaasi dhiirigeliyay in dagaaladu ay sii daba dheeraadaan oo iska sii socdaan. maxaa yeelay raashinkii iyo dawadii mucaawanada loo keenay waxa ay noqdeen gurmad xoog leh oo ay ku tashadaan hogaamiyaashii dagaalka oo ciidamadoodii u helay raashin iyo dawo bilaash ah, waxaana sidaasi hogaamiyaashii dagaalka uga yaraaday kharashaadkii dagaalka. ugu dambeyntii ciidamadii Mareykanka ayaa 9kii bishii December waxa ay soo galeen magaalada Muqdisho, waxaana soo raacay ciidamo ka socday beesha caalamka kuwaasi oo qaatay magaca UNITAF. markii dambena waxa ay u xubsiibteen howlgal ay qaramada midoobay hogaaminayso oo loogu magac daray UNISOM, kuwaas oo gargaarkii gaarsiiyay dadkii macluulsanaa. howlgalkii markii hore halkii uu ka ahaa gargaar bini'aadanimo markan dambe waxa uu isu bedelay howlgal military oo nabad ilaalin ah ilaa ugu dambeyntii ay iska hor yimaadeen taageerayaashii Maxamed Faarax Caydiid iyo kuwa UNISOM. waa dhacdadii xitaa filimka laga sameeyay ee Black Hawk Down. taasna waa qiso kale oo u baahan barnaamijkeeda iyo waqtigeeda gaarka ah. 11kii bishii December ee sanadkii 1992 labadii hogaamiye Cali Mahdi Maxamed iyo General Maxamed Faarax Caydiid waxa ay kala saxiixdeen heshiis nabadeed oo dhigayay in ciidamada iska soo horjeeday 48 saacadood looga bixiyo magaalada. waxaana heshiiskaasi ka shaqeeyay saraakiisha ciidamada Mareykanka oo isugu keenay Cali Mahdi iyo Caydiid safaaradii Mareykanka ee magaalada Muqdisho. laakiin marnaba ma dhaqan gelin heshiiskaas. labadii dhinacba howlgaladoodii waxa ay ku fidiyeen gobolada kale ee bartamaha iyo koonfurta dalka, gaar ahaanna milishiyadii uu watay General Caydiid waxa ay qaadeen dagaalkii ay ugu magac dareen xadka iyo xawaaraha. Caydiid markan waxa uu ku fikirayay in uu hirgeliyo dawlad uu ugu magac daray dawladda Salbalaar. bishii Abriil sanadkii 1992 waxa ay ku qabsadeen gobolka Gedo, halkaasna waxa ku sugnaa maleeshiyo hubeysan oo taabacsanaa madaxweynihii xilka laga riday ee Maxamed Siyaad.
arrintaasi waxa ay horseeday dagaal cusub oo dhex maray SNA iyo SNF. dagaalyahano maxamed siyaad kureer ahaa ayaa duulaan rogaal celis ahaa ku qaaday kuwii Caydiid 12 Oktoobar sanadkii 1992 waxay SNA ka qabsadeen magaalada Baardheere. dagaalkuna qaabkaas ayaa uu gobolada mid kasta uga socday. damacu wuxuu ahaa in hogaamiye kasta maleeshiyadiisii ay gacanta ku wada dhigto gobolada kadibna uu sidaasi madaxweyne ku noqdo. USC oo laba garab u kala jabnayd ayaa garabyadii ay usii kala jabeen dhowr garbood oo kale ilaa ay soo ifbaxeen hogaamiye kooxeedyo kale oo tiro badan. ugu dambeyn General Maxamed Faarax Caydiid waxaa lagu dilay Muqdisho 5 bishii Agoosto sanadkii 1996. Cali Mahdi Maxamedna 25 sano kadib dhimashadii Caydiid ayuu 10 Maarso 2021 ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. adduun weynuhu waxa uu si isdaba joog ahayd Soomaalida ugu qabanayay shirar dib u heshiisiin ah. shirarkaasi laftigoodii waxa isugu jireen kuwa daacad laga yahay iyo kuwa ay wax u laaban yihiin intaba. 27 Agoosto sanadkii 2000 doorashadii lagu qabtay magaalada Carte ee dalka Djibouti waxaa ku soo baxay Cabdiqaasin Salaad Xasan. dawladda Cabdiqaasin uu madaxweynaha ka ahaa oo loo yaqaanay dawladda Carta farna way nuuxjin weysay. hogaamiye kooxeedyadii ka faracmay USC ayay ka dhaqaaqi weysay. xitaa waxaa loo diiday in ay ku shaqayso aqalka madaxtooyada halkaas oo ay ka hor istaageen maleeshiyooyinkii hubaysnaa qaarkood. ugu dambeynna Cabdiqaasin waxa uu xilkii ka degay 14 Oktoobar sanadkii 2004. shirkii 15aad ee lagu qabtay Embagati Kenya 10 Oktoobar sanadkii 2004 Colonel Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa loo doortay madaxweyne ku meel gaar oo muddo 5 sano ah. laakiin muddadaasi maba dhamaysan. 2 sano markii uu joogay waxa uu ka bixi waayay qalalaase siyaasadeed, amni xumo iyo nabadgelyo la'aan ilaa uu xilkii ugu dambeyn uu ka degay oo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isna ku meel gaar ahaa uu uga dambeeyay. waxaa xusud mudan 15 shir ee daafaha dunida lagu qabtay waxa ay wada ahaayeen madalays aan wax natiijo ah laga macaashin. shir kasta waxaa lagu dhisayay laguna soo bandhigayay wax ay hogaamiye kooxeedyadu ku magacaabeen axdiga ku meel gaarka ah oo ah dastuur qodobadiisii aad loo qurxiyay laakiin ku talagalkiisii uu ahaa in aan weligiisii la dhaqan gelin. halkan waxaan uga hadalnay USC taas kama dhigna in ururkaasi kaligiisii uu dagaalamay samaan iyo xumaanna geystay. waxaa jiray ururo kale qaarkoodna USC ka horeeyay muddadii la aasaasay laakiin USC wuxuu saameynta ugu xoogan ku yeeshay maadaama uu ka dagaalamayay caasimadda. gacantii u dambeysay ee maamulka kursiga ka tuurtayna uu isagu ahaa. USC kadib waxa ay ahaayeen marxalado kale oo iyagana aan maalintoodii iyo munaasabadahoodii uga sheekayn doono taariikhaha ay xambaarsan yihiin. tan iyo muuqaalka xiga oo aanu soo diyaarin doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah. halkan waa Itaal Media.